السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله شرفت بدن فرحت بان idin rajaynaya meel kasto adduunka aad ka joogtaan muuqaalka waxaanu ku soo qaadan shan arrimood oo caafimaadka jidhka ah oo aanay siigadu sababin kan biliil siigadu aanay ku sababin ragga marka aynu muuqaalkan qaybta ugu dambaysa marayna arrin baynu is xasuusin doonaa oo aan ku jirin muuqaalkan marka kooban siigadu ma sababto blurry vision waa indhaha oo caad ka fuulo oo aragga fog ay dhibaato ka qabsato nambarada aad kala saari weydo xaalado kale ayaa sababa macaanku waa uu leeyahay xanuunka macaanka la yiraahdo xaalado caafimaad oo isha ku yimaadana way sababaan laakiin siigadu arinta kan biliil ma sababto arinta labaad waa prostate cancer ama waa prostate enlargement xanuunka ku yimaada qanjirka prostate-ka ee in badan aynu ka sheekaynay haddii markaa uu soo faaxo ama uu soo ballaadho ama xanuunka kansarku uu ku dhaco xiro kaadida ee faa'iidada caafimaad u leh biyaha ragga iyo taranka ninka inuu ballaadho oo qanjirkaasi uu bararo oo uu qaado kansar iyana siigadu ma sababto arrintaana siigadu ma sababto arrinta saddexaad ee aanay siigadu sababin waxa weeyaan gaabnaanshaha siigada marka early age-ka laga hadlayo qofku haddii uu jidhkiisu markuu gorayo uu siigada ku bilaabo daraasado caafimaad oo tilmaamaya way jiraan inay koritaankiisa ay carqaladaynayso koritaanka jidhkiisa inay carqaladaynayso daraasado caafimaad oo arrintaa lagu sameeyay way jiraan marka uu sidaa u qaangaadhaba 13 jir 14 jir 15 jir ilaa adigu 19 iyo meelaha wixii ka hooseeyo dhan hadii uu ku bilaabo waliba si joogto ah uu wado koritaankiisa inay saameynayso daraasado way tilmaamayaan laakiin maaha daraasado confirm oo 100% si toos ah uma saamayso in qofku uu gaabto oo uu higaaso oo uu qof gaaba noqdo laakiin waxyaabo kale ayaa gaabnida saameeya dhinaca genetica ayaa ka cuntada qofku uu qaadanayo laakiin waxa ugu weyn ee qofka dharkiisa saameeya waa dhinaca hidasidihiisa iyo hidaha uu hidaysanayo waalidiintiisa iyo dadka uu ka soo jeedo arrinta afraad ee siigadu aanay sababin waa faracasil waa xanuunka ku dhaca kiishka xiliyuhu ay ku jiraan ee galaha la yiraahdo iyana siigadu ma sababto kan biliil siigadu ma sababto xanuunkaas kiishka ku dhacay xididada way ballaadhaan ee xididada kiishka ku yaala markaas isbedelku ku yimaado siigadu wax saameeyna iyo wax sabab ma laha arrinta shanaad ee arrinta ugu dambaysa waxa ay tahay siigadu ma sababto permanent infertility ama dhalmalaan abadan abida midhalaysnimo abadan abida siigadu ma sababto laakiin dhakhaatiirtu waxay tilmaamayaan in markaas si temporary ay u keeni karto dadka ficilka foosha xun caadaysta haday joogteeyaan in markaas ay ku keeni karto xaalad temporary ilaa inta ay joojinayaan ay ka soo kabanayaan inay dhalmadooda ay saameyn karto laakiin dhalmalaan barmentaliya oo si joogta ama xidhiidha ay u sababayso siigadu ma jirto yacni midhalaysnimo abadan abida siigadu ma sababto haddaba arrintii aynu niri xagga dambaynu muuqaalka ku sheegaynaa waxay tahay intan imika aynu ka sheekaynaynayba waa caafimaadkii jidhka ee ragga ayaanay afartaa ku sababin laakiin arrinta aynaan gabi ahaanba soo qaadin maxay tahay caafimaadkeeda
waa dhinacii maskaxda. marka cudurrada iyo dhibaatada siigadu ay keentaa waxa ay u badan yihiin dhinaca maskaxda. dhinaca maskaxda in badanna waynu ka hadalnay sida ay u saamayso iyo dhaawacyada ay gaarsiiso. iminka shantaniba waa shan caafimaadka jidhka ragga oo siigadu aanay wax dhibaato u geysan. haddaba maskaxdu jidhkan intiisa kale aynu soo tilmaamnay way ka bedelantay oo ficilka foosha xumi waxa uu ku keenaa maskaxda saameyn aad u weyn, dhaawac aad u weyn iyo dhibaato aad u weyn oo qofka marka uu sidaa u bilaabo ku bilaabmaysa maskaxda caafimaadkeeda. intaasaan ku soo ururnay. Assalaamu calaykum.